waan gartay jacayl baa kugu dhacay jacayl baa igu dhacay marka isaga calow waxaa qorsheey ahayd inaan diintana si fiican u barto culimada waaweyn shibille iyo sheekh umal iyo oo dee geega Soomaaliya aad looga yaqaano inaan ku hirtoon iyagoo kala noqdo baa igu jirtay marka waxaa igu soo dhacday horniyada adduunyadu waa ta fidnada noqotay iskana guurso waxbarashadana sii wad daahan inteed markaa la egtahay jacayl kugu dhacay guurka u hawoonayso waxaan u malaynayaa marka waxaan jiraa 18 19 ma yari waan gaaray guur dee meeshaan ka imidna calow 14 iyo 15 baa lagu guursadaaba hayla yaab anigu tahriibka iyo socodka dib ii dhigay anagu aad baanu seft waa isugu xirnaa marka saawaman daahayba doob baaban ahayba 18 jirkaaga ha haye gabadhaasoo marka garoob ahayd yaan jeclaaday haye gabadhuna dee walaal camal bay ahayd way dhaqaalayn jirtay maadaama xerow iska ahay marka madrasadii iskuulka la xidho tigidh aan ku aado Gaarisa ama Nairobi oo ku soo neefso qaraabada meelaha degan aan la soo yar joogo waxoogaa yara shopping iyo dhar iyana aan soo helo bay iga bixbixin jirtay te waxay tiri xataa ana yaa sadiiq maanigi baa hadda u kankantay adiguna naxariistii gabadhii baad jacayl u bedeshay naxariistii waan jacayl u bedelay maxay kugu jawaabtay marka waxay tiri niyo waad waalan tahay walaalnimadan yartii iyo inta yar ee dharkan ku gadgaday iyo tigirkan ka bixinayo bas waxay iga bixin jirtay caan ka ahaa marka deegaankaas oo Safanana Express la dhigi jiray Safanana Express ha markii dambe way badan doonaan oo basaskii tartan bay galeen sax laakiin Safanana gaas number 1 aha oo markuu tuulada soo galayo xerada qaxootiga dee dhawaaq bahal hoon oo qurux badan ya ayuu ku dhufan jiray marka qofku markuu meelaha ka soo noqdo isagoo dhar fiican iyo dhar waaga waxa la xidhan jiray surwaal iyo shaad side pocket la dhigi jiray oo jeebab fara badan lahaa waa dhawaateen jigjiga ay dib soo celisaaban mooday yaa waaga la xidhan jiray surwaal yar balbalaana ha alaabtaasaan intaan Nairobi ka imid oo islaan ayeeday la yiraahdo ayeeday oo cadar la yiraahdo hadda Ingiriiska joogtay intay ii soo gaday oo qaali aha yaan markaas xuduburinaya wax kala ma iska dhigay oo khamiiskeen ka ahay gabadhu caawinaysa ma bihiba khamiiskii yara iyo macawisti iyo shaqadeed masaajidka ka haysay waan dhigay masaajidkii waan wadaa sax salaadii wixii waan wadaa ma imaamnimadii waa wadaa fasaxa waa wadaa markaan soo noqdaan ka hadlayaa baad ku noqotaa ha waa gartay jacaylkii markuu igu dhacay gabadhii way la fahmi weyday way ugu xumayso waxay ku tiri ilmo yar baa tahay oo